وكا لعقت لواتن دور كومبليت وين سو قارتي ما شاء الله هذه ومسيهين so هنسلا اقنا مركا meeshan haday ka faalo xumeedna marka lacagta lagu soo shubo bay ku qurxoonanaysaa oo sidii la rabay bay ku noqonaysaa so $3 akoonkay kala ka soo banaystay ba ku jirto oo YGG uu gadneed okay midan kale waa u jeedin hadda $20 ay soo dhacday USDT ee lacagta aan dalbanay isla hadda ay soo dhacday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkii aad sugayseen ayaan halkan ku duubayaa haddii ay bikaran noqdo oo fast deposit ah okay insha Allah Binance-gani waa Binance-gii aad ogeydeen muuqaalada aan ka soo geliyay YouTube-ka okay asigii aan waxaan doonayaa inaan ku soo sameeyo fast deposit marka inta u marayaa si aan deposit ugu soo sameeyo waxaan u marayaa shirkad loo yaqaano XOTE shirkadaasi ayaan ka dalbanayaa deposit-ka iyaga ayaa igu soo shubaya fast deposit markaan isla aragno haddii ilaahay karaan noqdo waan la hadli doonaa WhatsApp waaye so transaction badan aan dhaxmaray inaan kor u sii socdo ma rabo hadda waxaan doonayaa inaan weydiisto in transaction la ii sameeyo ama deposit la ii soo sameeyo anigoo ku soo shubaya akoonkii cusbaa ee Binance-ga ahaa so waxaan leeyahay assalaamu calaykum boss waxaan rabaa USDT ayaad leedahay marka USDT okay waxaan rabaa USDT $20 okay $20 baan ku sameynayaa insha Allah $20 baan u baahnayn so waxaan sugeynaa like soo jawaaban waa arkeen insha Allah okay saaxiibayaal teamku ay soo jawaabeen sida u jeedidba wacalaykum salaam lacagta halkan ku soo diray u dhahay payment methods ay soo direen so EVC plus sidoo kale ama waa Golis iyo Telesom ama waxa kale aad ku soo diri kartaa bangi Salaam bangi ah ayaad ku soo diri kartaa so inta marka midka aragtid ku dir adiga okay mar walba magacooda ku soo bixi doono Yixi LTD ah insha Allah aniga hadda waxaan u tuuri doonaa EVC ahaan anigoo maraya habka adeega Wafi ayaan ugu diray insha Allah so waxaan dhihi doonaa big offer ajradeen qaybtan hoose offer ka maanta jiray soo sheegan marka okay big opportunity okay rate ka maanta deposit dhigasho waa 1.5% waaye $100 waxa raacayo $100 waxa raacayo $1 okay $100 $1 hadii raacayo marka $20 imisa raaci karto intaas waa ina ogaana kadib aan lacagta u dirnaa hadii ay bikara noqdo so inta waxa kale ii yaalo withdrawal loo jeedaa withdrawal-koodana waa zero fee withdrawal wax lacag lagama qaadayo marka USDT aad u diraysid iyagu oo EVC ama waxyaabo kale ay kugu soo bedelayaan wax lacag ay ka qaadanayaan qoladan kaliya deposit-ka ay wax ka qaadanayaan mar waliba rate-kan isbedelo adoo ku dhufanayo lacag ka qaadayaan mar labo noqda mar hal bar mar uu ka yaraadaa okay mar marxalad waaye mar walba marka iyaga ku soo diray automatic ku soo dirayaan maanta rate inta soo maray ku leeyahay okay aan isla tagno calculator-ka marka hadda 0 waxa waaye 1.5% waaye so waxaan tageynaa calculator-ka waxaan leenahay $20 lagu dhuftay 0.015 ayaan dhihi doonaa marka so maxaa raacay 3 senti macnaha 0.3 oo ah 30 senti macnaha ayaa raacay so aan u laabano marka waxaan leenahay hadda tusaale hadda rabtid inaad iska sii hubisid ama shaki ka qabtid waxaad dhihi kartaa $20 imisa soo raacinaya dhihi kartaa marka adoon is dhibin okay $20 imisa soo raacina so adiga hadda 20 iyo safe ina ku tagta aragtid waaye hadii 20 laga jaranayo wixii laga jaranayana 20 siisa u diri kartaa marka imisa ayaa soo raacina ayaa so in wax laga soo jarto ma rabo imisa ayaa soo raacina sax okay hadda aan kala aragno marka hadda soo jawaabaya insha Allah okay ina soo jawaabaya marka insha Allah waa kaasa sida aan sheegay
0.3 ayaa raacayso. insha Allah marka hadda waan u diraynaa inagoo isticmaalayo adeega waafi. insha Allah waafi inagoo isticmaalayo aan u diri doonaa biidin illah. okay, lambarkooda maana soo qaadanin. lambarkan kan ah EVC-ga ayaan ku ubistay. kadib waxaan tegayaa meeshii waafiga, then waxaan dhihi doonaa send. kadib wallet ayaan dhihi doonaa. kadib lambarkooda ayaan gelin doonaa yigsi. next ayaan dhihi doonaa. okay, hadduusan magacooda kusoo saarin iska dirin lacagta. so hadda 20.3 ayaan u diri doonaa. si 20 doortoos ay iisoo gaarto 20.3 ayaan u diri doonaa insha Allah. 0 fee waa kan waan isla naqaanaa, waa kan ah yigsi LTE 5 yigsi. so markan saasoo kugu soo baxa u dira marka send dheh. insha Allah waxaa dhihi doontaa kadib waxaa u diri doontaa receptionka ama waraaqada ayaad u diri doontaa. okay, share ayaan soo dhahay. kadibna waxaan ku diri doonaa meesha aan kala hadlay. okay, waan soo diray mudane, waan soo diray boss demo mudane dheadi. it's up to you saa ula macaamishid. okay, kadib waxay dhihi doonaan waxaa soo dirsataa adresski ugu soo shubi lahaa lacagta. adresskaas Binance ayuu kugu dhex jiraa. so waa isla arki doonaa. Binance-gana ayaan soo diyaarsanaynaa. so ilaa inagu soo jawaabayaan. kole waa qolo shirkad ah oo dad badanna ay lacago u sarifaan. Binance-ga waa kana. okay, deposit ayaan u baahan nahay. so meelo badan aad kasoo bixin kartaa. inaad 3 dhibcood kore ku dhufatid, ama inaad halkan haddii ay kuu soo muuqato aad macnaha more aad dhahdid. so hadda 3 dhibcood ku dhufo. kadib halkan markuu imaado akoonku waa akoonkii sida ujeedino. halkana waxaan ka raadi doonaa deposit. deposit haddii halaan aad ka dhex weysid more ayaad dhihi doontaa oo halkan ayaad dooran doontaa more service. kadib hoos ayaad u socon doontaa. kadib halkan waxaa ka dooran doontaa deposit. deposit markaa saas u dooratid waxaad dooranaysaa network-ga ay kuu soo diraan iyagu. so inta badan waxay isticmaalaan sidaan ogahay USDT, gaar ahaan BEP20 network loo yaqaano ama BNB smart chain network loo yaqaan ayay isticmaalaan. so aan sii diyaarsado USDT aan ku dhufsan doonaa. okay, meeshan waxaa ujeedaa hadda BNB BEP20 waa midka ugu sareeya marka. okay, waa BNB smart chain weeyaan ama BEP20 weeyaan. so kuwan kale waa lagu diri karaa, laakiin shirkadu midka ay ka codsato inaad kusoo dirtid ayaad ku diraysaa. 90% inta aan la macaamilayn waxaan ku arkay blockchain-kan inay isticmaalaan. so iyagayaan ka warsugaynaa marka inay na soo dhahaan marka soo dirso. inkastoo ay igu ogyihiin ani macnaha automatic inaan hore usoo dirsan jiray oose hadda inay isoo sheegin laga yaaba. so in badana macnaha aan wada shaqeyna dhexmartay oo wax aan isdhaafsanaynay. so waa kasaa mar aan u diray $203. okay, 200 ay isoo dhacayso marka. so 200 waa kaas automatic ay isoo dhacday Binance-gayga lagu soo diray. okay, waa ka marka BEP20 oo ujeeda Soomaan adresski waa kaas. so inta badan waa ka maysan isoo dhihin oo ujeedaa. laakiin hore ay isoo dhihi jireen marka aan cusbaa oo xiriirkeen uu kow ahaa. so hadda haddii aan la daahan waxaa laga yaaba inay soo dhahaan soo dirso network noocaas ah. haddaan u diran waa sidii la rabay waa isnaqaanaa hore macnaha aan macnaha wada shaqeyna dhexmartay muddo dhan aan wax isku diraynay. so hadda way iga sugayaan, hadda way fiiriyeen wixii, laakiin wax jawaab malahan saa ujeedid. so adi way kusoo dhihi doonaan I'm sure. hadda markaa maadaama aan ujeedo inaysan isoo dhehaynin inaan u diray naqanaysaa BEP20 networkan ah ayaan ku dhufsan doonaa. kaas marka ku dhufsado okay, waa ka way soo dhaheen bahda. okay, exactly ujeedaa networka BNB smart chain kusoo diray ku dhaheen BEP20 loo yaqaano soo dirso micna. okay, marka hadda waa sidii shaqadii dhex inoo marayseen. kana koobi dhihi doonaa. okay, halkaas ayaan koobi ka dhihi doonaa bartaas
ma la doonaya marka wax qoraal inuu kaaga darsamo haddii hal qoraal ay kaaga darsanto lacagtaasaas ayay ku dhuntay so beb20 waa isna waa ujeednaa copy aan dhahaa bismillah kadib iyagayaan u tagaa whatsappka so inuu wax kaaga darsan ma la rabo halkaasaan ku dhufanaa kadib waxaan dhihi doonaa send so 376 u dambeyso intan iska soo jeegare maxaa u dambeyso 376 insha allah bas la arki doona markay soo diraan waa kaa saaxiib so waana beb20 okay haddaa iskhilaaftiin ogow lacagtaa saasay ku dhumaysaa okay marka aan arkno insha allah waxoogaa kadib inay igu soo ridaan rajaynaa so caddeyn ay kuu soo diraan markay kuu soo ridaan sida kan oo kale evc-ga sida kan oo kale binance ahaa away midkan oo kale binance iyaga ii soo dirayeen saan camal ay igu soo diri doonaan marka insha allah aan isla aragno video waa noo boos garayna ilaa inoo soo diraan insha allah okay ugu dambeyn lacagtii bay inoo soo rideen saaxiibayaal okay sida ujeediinba caddeyntii inoo soo direen $20 ay soo direen okay bendina ku jirtaa waa tan hadda marka iyaga ii soo sawireen laakiin waxaan arki karnaa in ay inoo soo dhacday kor markaan fiirino binancegiina deposit successful waa $20 ay kusoo dhacday marka so gudaha aan tago waxaan ka fiirin doonaa marka asaadkeena waa ka lacagta $20 complete wayna soo gaartay maasha allah aaday u mahadsan yihiin so aan isla eegno marka meeshan hadday kaa faalxumeedna marka lacagta lagu soo shubo bay ku qurxoonaanaysaa oo sidii la rabay bay kuu noqonaysaa so $3 akoonkayga kale kasoo banaystay baa ku jirto oo YGG u gadneed okay midan kale waa ujeedin hadda $20 ay soo dhacday USDT ee lacagta aan dalbanay isla hadda ay soo dhacday so waxaa filaa inaan si waxaan u fahnay okay history waa ujeedna soomaan so taariikhda waa kaas 3 October 8:42 $20 kusoo dhacday waa kaas baqshadayna way saaran yihiin bil hadda kana toosoo wuxuu ku geey doona meeshan so waxaa filaa hadda inay fahanteen sida ku heli kartaan USDT so sidoo kale qoladan waxay leeyihiin haddii aad xogtooda rabtaan Facebook ay leeyihiin aad ka heli kartaan WhatsApp-kooda iyo xogtooda aad ka baari kartaan okay marka haddaa u baahantiin marka Facebook-gooda raaca meesha iska tixraaca insha allah linkigoodana waxaan isku dayayna qaybta hoose ee in soo saaro description-ka haddii ay bikra noqdo so qolada marka aan u mahad celiyo okay so waa mahadsantahay saaxiib okay so sidaas aan ugu guulaysanaa depositka fadlan haddii aad muuqaal ka faa'iidaysatay waxaad samaysaa muuqaalka like dheh sidoo kale share saaxiibadaada gaarsii si ay ugu faa'iidaystaan sida ay u heli karaan USDT iyo si binance-gooda ay markaas ugu soo shuban karaan waxaan rajaynaa insha allah inaan soo duubo muuqaal kale ah oo ka sheekeynaya isna withdrawal muuqaal sameynaya withdrawal isna anigoo tiimkan aan kaga sarifayo lacag insha allah waa soo gelin doonaa haddii ay bikra noqdo isla tiimkan aan USDT u diri doonaa iyagana EVC soo diri doonaan haddii ay bikra noqdo insha allah withdrawalkana wax transaction rate ah kaama qaadanayaan oo fee dhan ma lahan transactionkooda oo withdrawalka sida inta hore ugu soo sheegnay keliya depositka ayaa lacag lagaa qaadanayaa withdrawalka lacag lagama qaadanayo so videoga halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaa filaya in si wacan aan u wada fahnay insha allah inta ka gaarayno next video withdrawal iyo wixii la halmaalo insha allah waxaan idin leeyahay fi amaanillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh